deegaanka Meygaagle oo ka tirsan magaalada Abuuhoodle kana xiga dhanka waqooyiga una jira 35 kiiloomitir magaalada Abuuhoodle ayaa muddooyinkan waxaa laga waday dhismo masaajid oo lagu cibaadeysto masaajidka oo maraya heer gabagaba haddaba waxaa saaka booqasho ku tagay masaajidkan laga hirgeliyay dhawaan deegaanka Meygaagle qaar kamid ah culimada diinka magaalada Abuuhoodle waxaana ugu horeyntii ka warbixiyay masaajidkan Cabdullaahi Jaamac Haruun Cabdullaahi Muadin oo ah wakiilka gacanta ku haya masaajidkan ikhwaani daliya dibadda waa dareemaysaan oo aragtaan masaajidku meesha uu marayo masaajidku ma cagdhigna oo cagtii way maqan tahay safiita male oo safiitadii way maqan tahay dushiisa qabiya ka muuqato oo isgaarsiintii buu u baahan yahay cadayn buu u baahan yahay wax fara badan buu u baahan yahay waxa kala qabyo aad aragtaan walaalkii masaajidka loo dhisay oo laba aha in hadda seeskii uu taagan yahay bulkeetigii lagu dhisi lahaana hadda gacanta lagu hayo oo ay shaqaalihi ku socdo marka waxaan aad idinku baraarujinayaa inaad indhaha la raacraacdaan qabyada masaajidka iyo baahidiisa isagoo masaajidku ku yaala magaalo aan macnaha populationkeedu xoog badnayn dhaqaalana iyadu hadda aanu ka soo bixi karin waxaa isaguna halkaas ka hadlay Cabdirashiid Xaaji Samatar oo kamid ah culimada diinka magaalada Abuuhoodle isagoona baaq u diray muslimiinta Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan masjidkan dhawaan laga hirgeliyay deegaanka Meygaagle wa anal masaajida lillah masaajida ilaahay baa iskale qof sheegan kara oo mulki gaar ah u sheegan kara ma jiro waa wax dadka muslimiinta ah oo dhan u siman kii jooga waa ku cibaadeysanaya ka safarka ah waa ku cibaadeysanaya waxa laga yaabaa kameel kala waaya waliba inuu uga sii faa'iido bato inuu ama seexdaaba laga yaabaa isagu makaan u noqdo waxaa isaguna halkaas ka hadlay Cali Xaaji Cabdulle oo kamid ah culimada diinka magaalada Abuuhoodle iyo Sheekh Cabdishaafi Axmed Cali oo ah maamulaha jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Abuuhoodle laleeyahay wax ku soo darso qof nasiib laba heli kara oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu garasho siiyay iyo aqoon waxaan leenahay ujeedada leeno abuurtay waa cibaadada ujeedada ka sii dambeysay oo leenahayna waa jannadiina waxaa lanagu sheegay masaajidka inaynu ka helin man bana masjidan lillahi bana allahu bayta fi ljannah bani nabi sallallahu alayhi wasallam waxaa halkaa ka muuqanaysa markaa ujeedadeennii halkaa inay ku jirto waxaan noogu baaqayaa dhammaanteen inaynu ka faa'iidaysano fursad labada qole malcaamadda ah iyo masaajidka cadayntiisa iyo cagdhigiisa iyo israacintiisa waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan ka soo qayb qaataan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ugu dhawaadaan magaaladan masaajidkii koobaad dhagax ah ka dhisma daar ah maanta maraysa in masaajidka marka la dhameystiro oo la habeeyo ayaan ugu baaqaynaa muslimiinta waxaana ugu dambeyntii halkaas hadalla kooban ka soo jeediyay Aaqil Maxamed Ismaaciil uguna baaqay muslimiinta Soomaaliyeed in ay ka soo qayb qaataan masaajidkan qabyada ee dhismihiisu ka socdo deegaanka Meygaagle deegaan weyn oo cusub inuu yahay walaalayaal markaa waxa weeyaan masaajidkaas sidii aad maqlayseen muddo weynna waa socday gabagabana waa taagan yahay kharashka aad maqlayseen ee deynta 1300 ilaa 7000 ee dollar ee dhismihiisa ka dhiban hadday tahay labada qol iyo haddii ay tahay ma garanaysaa cagdhigii hoose nuuradii rinjigii iyo qabyada dusha ka muuqata masaajidku intaas u baahan yahay masaajidka sidii aad u soo caawin jirteen inaad soo caawisaan sidii aad ugu soo dadaali jirteen inaad ugu soo dadaashaan waxa weeyaan xaqiiqiyan maalka aynu haysano waxa inaga anfacaya wixii ay noor Ilaahay geysino si kastaba ahaatee waa masaajidkii ugu horeeyay oo noocan oo kale ah oo laga hirgeliyay deegaanka Meygaagle Maxamed Cali Bile telefishinka qaranka Soomaaliya deegaanka Meygaagle